kusoo dhawaada maadadeennii farqurxinta laatiinka noocii koowaad ee calligraphy 1 ee isku dardarka casharkii 18aad waxaynu kusoo guda jirnay tababarkii buugga caadiga ah hore waxaynu u soo qaadanaa alifbeetada casharkii 17aad casharka kanne waxaynu ku qaadan doonaa shuruuc 3 xeer ay leedahay xeerarka 3da xeerka koowaad labadii lilaahiya waa xarafka L weeyaan xeerkan si loo qiyaasiyo xarfaha ubucleyda labadii lilaahiya lama loodin karo xeerka xiga waa xarfaha waaweyn halka looga aadinayo aan eegno Soomaaliyey xeerka saddexaad waa xarfaha luguleyda oo matalaya xarafka Y yaxaas baa yiri intaan yaabay baan yuumbaday yaxaas baa yiri intaan yaabay baan yuumbaday saddexda xeer aynu guda galaynaa sharaxaadooda saddexdan xeer ay leedahay farqurxinta saddexdan midda koowaad waa xarafka L si xarfadan wuxuu ugu duwan yahay meel looga aadiyo malahan oo looga qiyaas qaato xarafka B oo kaleeto halkaas looga qiyaas qaadanaya xarfaha ubucleyda lagu aadinaya laakiin xarafka L waa qiyaasaysa xarafka E halkaas kaga aadiday oo aad ku qiyaasay ay xarfaha ka dambeeyana ku wada aadinaysa xarfaha ubucleyda in saas soo baxaan la rabaa oo dhaxda markii laga saaro leenkii ubucleyda markii la saaro in xarfiyo oo dhan ay soo wada baxaan oo leenka wada qabto ayaa looga baahan yahay si hadhow xarfiyo isku dheelitirmaan oo markii la saaro leenkaas gebi ahaantood wada qabto ay soo baxaan oo halka ay ka wada simeeyaan xarfaha sidoo kale waa in ubucda ay ka simeeyeen oo halkaas ay soo wada saaran yihiin leenkaas madaxa waa in loo soo wada saaraa xarfaha gebi ahaantoodba xarfaha madaxleydana waa in wada silmaan oo korkaas ay ka wada siman yihiin xarfaha madaxleyda ay isku aadan yihiin xeerka labaad waa xarfaha waaweyn xarfihii dhaxda xariiqa ku lahaay dhaxda halkaas xariiqa ku leeyihiin ayaa looga aadinaya xarfihii ubucleyda halkaas ay ka qabsanayaan xarfaha ubucleyda ka dambeeyaan dhammaantood halkaas ayaa looga wada aadinaya leenka markii la saaro gebi ahaantood waa in ay soo wada baxaan ay qabsadaan xeerka saddexaad waa xarfaha luguleyda oo matalaya xarafka Y ayagana waa inay isku beegan yihiin xarfaha luguleyda xarafka Y markuu weyn yahay halkaas ay ka aadayaan sidii hadda xarafka E aan soo baranay ee xarfaha ubucleyda oo idil laakiin markii hoos u dhaadhacayaan xarfihii luguleyda ayagana waa in ay isku beegan yihiin halkaas waa in madaxa loo soo wada saaraa leenkaas xarfihii ubucleyda korkaas waa in ay ka wada silmaan madaxleydiina sidoo kale waa in kor laga wada simo luguleydiina waa in hoos laga simo
ubucleydiina waa in dhammaantood ay isku wada aadaan. qaabkaas ayaa ula dhaqmaysaa xarfaha dhammaantood sidaynu kusoo barnay aasaaskii xarfaha. intaa qoraallo badan ka soo samee adigoo kusoo qoraya buug caadi ah. waxaa idiin soo gudbinaya qoraya Maxamed Cabdalla Waasuge. wixii faahfaahin ah casharkan iyo casharadii kaletaba waxaad igala soo xiriiri karaysaan nambarka aan qorayo. waa inoo cashirka xiga iyo weedhooyin ku soconayo alifbeetada Soomaaliga haddii uu eebbe idmo.